بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiintan ah what is Pareto principle ama 80-20 rule. Pareto principle waxaa sidoo kale loo yaqaanaa 80-20 rule, waxaana aragtidan hindisay ama keenay dhaqaaliyahan Talyaani ahaa oo la oran jiray Wilfredo Pareto, oo fikirkan waxa uu leeyahay 20% waxqabadkaaga ayaa ku keena 80% natiijada aad helaysid ama macaashka aad helaysid. marka uu fikirkan keenayay waxa uu arkay in 20% shacabka Talyaaniga ay leeyihiin 80% hantida taala wadankaas. kadibna fikirkan waxaa si guud loogu cabiraa dhinacyada kala duwan ee nolosha iyo shaqadaba. aan isla aragno tusaalooyin inoo iftiiminaya sidee fikirkan loogu cabiri karaa dhinacyada kala duwan ee nolosha ama ganacsiga. waxaana tusaalayaashaas ka mid ah 1. ganacsiga. u fiirso badi shirkadaha faa'iidada ay sameeyaan 80% waxaa laga helaa 20% macaamiisha shirkadda. haddaba si ay shirkadda usii kordhiso waxqabadkeeda waxaa laga rabaa in waqti fiican ay siiso macaamiisha faa'iidada badan u keenta. sidoo kalena waa inay ku dadaashaa sidii ay u kordhin lahayd. 2. maaraynta waqtiga. u fiirso sidoo kale 20% juhdiga ama effortiga aad qabatid ayaad ka heshaa 80% waxqabadkaada ama wax soo saarkaaga shakhsiga ah. sidoo kale u fiirso dharkaaga 20% ayaad xirataa, 80% kale ee soo hartayna marmar dhifa ayaad ku xirataa. gunaanad ogow waxaa dhacda inay xisaabta noqoto 60-40, 70-30, 90-10 iyo lambaro kaleba, balse waxaa fikirkan ka baranaynaa halkee loo badan yahay si awoodeenna ugu badan aan ugu jihayno sidii aan uga faa'iidaysan lahayn waqtiyada ay wax soo saarkeenna shakhsiga ah ama shirkadeed uu sarreeyo. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.